President Mahmoud is scheduled to meet his counterpart Abdel Fattah al-Sisi to discuss a wide range of issues. intaad soo go'aanka gaadhin inuu dhiilkan xun yahay ama wanaagsan yahay waxaa mudan inaanu taariikhda masaarida ee Soomaaliya dib u raacno horta ilaa quraanka laga waramayaa taariikhda markii Nabi Muuse alayhi salaam ka baxsanayay Fircoon dulmigiisii oo dhulkii Nabi Shucayb maadhibaanka u baxsaday uu gabadha ka guursanayay waa dhulkaas markii dambe Cusmaanida gacanta ku qabteen oo Kadivia ama masaaridii iyakuna ee markii dambe ku guuleystay inay saylac kireystaan lacagna ku siiyaan Cusmaanidii oo si daciif rabta oo markii dhulku maamul jirtay ilaa markii dambe 1884 markii uu Ingiriiska ka guuleystay Britishku Cusmaanidii uuna yeeshay Cusmaanida dhulkii ay lahaan jirtay oo Masar ah Masarna la sii yeeshay dhulkii ay ku lahaan jirtay Suudaan iyo Soomaaliland sida uu la wareegay Britishkii waa tamaanta keentana inay masaaridu ilaa hadda strategic iyo military ahaan rabaan inay badana ka sii galaan iyadoo ku soo darsantay inay maanta xabashidiina sii xoogeysteen xaggaana pressure ciidamad ku cidhiidhin karaan ayagoo hubkoodii militarigooda meesha si cadaalad oo sharciyeysan soo dhigan karaan dhulka Soomaaliya haddii aad leedahay Sisi iyo Masarba waxay ku soo galayaan islaamnimada ku soo dhaweystaan oo asxaab bay ku qabanayaan waxa xasuusataa inay kaga dhaweyd inay fadwo u soo saaraan inay muslimiintu hilibka cuni karaan caalamiinta azar intay soo deyn lahayn Falastiinta yare masaakiinta caruurta gaajooleysa ku hor baqtiyeysa dalkooda ee xuduudkina ka geejisteen taas way muslimadooda haddaad leedahay lacallana markuu kontraktigoodu dhaco ayay naga tagayaan Ethiopian-kana way naga qabanayaan waxa xasuusataa Amisonkii 2007 wadanka soo galay oo u balan qaaday Cabdullaahi Yuusuf hadduu mar uu wadanka soo galiyo inay isagana madaxweyne ka dhigayaan oo al-shabaab iyo cid walba ka ilaalinayaan markuu balantiina oofiyay sanad bay ku hayeen xalka ka bacdina nin cusub baa meesha keenay ilaa haddana ayagii al-shabaab wadanka waa joogaan waxayna ku darsadeen inay xitaa admis keenaan wadamadana markay doonaan qarxiyaan iska daa inay tagaan boqolaal sano dambe meesha sii joogaan ilaa intay wadanka dhan gacan ku qabanayaan marka iska dhaaf inay masaaridu bixi doonaanba marka ma waxay kula tahay inuu Xasan Sheekh dhiilkan uu la soo galay Sisi ka duwan yahay kii Amison oo ma u malaynaysaa inay iyagu ka duwanaan doonaan Amisonkaas ee iskaga tagi doonaan markay xilligooda u dhamaato oo ay yeeli doonaan inay hubkoodii waxoodii ay ku hayeen baddaas iyo Ethiopian-kaas inay iskaga laabtaan dad ay hadas ku haystaan wabiga Nile iyo strategic oo masaaridii xitaa waliba hadda og yihiin inay Imaaraatiga iyo Turkigu garab siiyaan Ethiopian-ka sida ugu soo durkaan Suudaan oo markii hore iyadana Masar gacanta ugu jirtay maantana Ethiopia taa la wareegi rabtaa marka walaal comment ku reeb dood qurxoon fikrad qurxoon oo siyaasad leh oo aragti dheer leh noogu reeb meesha